مشرح عبدي صلبان جامع عبدي كنين oo kamida musharaxiinta u tartamaya doorashada golaha wakiilada kana sharaxan gobolka Togdheer ayaa lacag gaaraysa $1,000 iyo waliba qalab isboorti waxa uu ku wareejiyay xulka gobolka Togdheer sanadka uga qayb galaya tartanka gobolada Somaliland. Maxamed Xuseen Rooble oo ka wakiil ahaa musharaxa ayaa lacagtaasi waxa uu ku wareejiyay isuduwaha ciyaaraha ee gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer kana mid ah gudida qabanqaabada ayaa iyaguna waxay u mahad celiyeen musharax Cabdi Salabaan Jaamac Cabdi Kaniin runtii hawsha aanu maanta fulinayno waxa dareenkeeda lahaa oo ku dhiiraday inuu hawshan fuliyo xildhibaan u sharaxan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer oo ah Cabdi Salabaan Jaamac Cabdi Kaniin waxaan leeyahay ilaahay khayr ka siiyo runtii waa dareen farxad igeliyay runtii markaan arkay ogaanshaha uu og yahay inuu taageero tiimkii gobolka Togdheer oo maanta Hargeysa jooga oo ciyaaraya kowda bisha baan filayaa tiimka ugu horeeya la ciyaaraya marka way qurux badan tahay in taageero noocan oo kala la siiyo oo ama aday dadka business kale noqoto ama ay noqdaan dadka gobolka ka soo jeeda dhinaca noqotaba ay taageero u muujiyaan marka imika waxaan ku soo dhaweynayaa insha Allah oo aan gudoonsiinaya qadarka lacagta maamulka wada xulka tiimka waan ku wareejinaya lacagtii wad mahadsan tahay adadka lacagtuna waxa weeyaan waa $1,000 weeyaan runtii xildhibaanka Cabdi Salabaan aad iyo aad buu mahadsan yahay annaguna runtii dee uu noo soo kiishado alaabtii waa idin keenay waxaan rajaynaynaa in gobolku meel wanaagsan keeno guul wanaagsan soo hooyaan runtii aan ku wada faano tiimkeena gobolka marka dhamaantiin khayr baan idin rajaynaynaa kulay anagii odagana qolada qurba jooga ah waliba isla dhanbaan nahay habeen dhawdna shir baa ka dhacay marka imkana kiibaan xoojin doonaa hadii alla ka dhigo marka waxaan rajaynaynaa dhamaanteen inaynu meel wanaagsan iyo guulo wanaagsan isugu wada nimaadno waxaan halkan kala wareegaynaa galabta sida arkaysan lagu wareejiyay tiimkan ka wakiilka xildhibaanka uu soo wakiishay runtii lacagta iyo agabka isugu jira aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afkii gudida oo xil saaray barasaabku inay la shaqeeyaan isuduwaha waxaan u mahad celinaynaa Cabdi Salabaan Jaamac oo ah nin gobolka Togdheer ka soo jeeda oo magacii maamuus ku leh waxaan leeyahay ninkaas waa nin waxtar ku leh gobolka Togdheer horena ugu soo shaqeeyay kana soo baxay gobolka Togdheer ilaa ciyaal iskuulnimadiisii ku-xigeenka tababaraha kooxda gobolka Togdheer ayaa waxa uu ka hadlay rajada ay sanadka ka qabaan in ay koob ka qaadaan waxaan ka qabnaa rajo aad u weyn horta dareentaan marka rajo aad u weyn baan qabnaa waxaan kulli ku kalsoonahay ciyaartooyada aan wadano waa ciyaartooy da'yara waa ciyaartooy soo celin doona niyadda iyo taageerayaasha shacabka gobolka Togdheer dhammaan taageerayaasha waxaan u rajaynayaa inay kuwiina soo celinayeen ka kulli waxaan ka qabaa anigu rajo aad u weyn oo kulli markaan arko bahalku waxaad moodaa inuu bahalku noo dhow yahay insha Allah waxaan u dirayaa gobolada kalena gobolka Togdheer soo noqoyay ayno haato de kale fundarka astaantana waanu hayno maadaama barashiisi Soomaaliland hayn waxaan rajaynayaa halkii inuu ku yaqaan inaan gobolka soo celino oo nahayd ka dambaysta in koobka ay ka mid ahaato ka kale rajaynayaa weyn baan ka qabaa maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet
ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111